waxaan gelaynaa maalmo kadib oo maanta yani 27 ay bishu ay tahay 2019 ayaa inoo dhamaanaysa waxaa foodeena ugu soo haaya 2020 sanadka miilaadiga ah sanadkaas cusub ee ugu soo socda yani dadku hadayna ku baraarugsanayn sanad isbedelkiisu wuxuu yahay in lagu baraarujiyo ayay mudan tahay dadka iska hilmaansan yihiin oo qaflo iyo hilmaan ay ku jiraan markaas sanad cusub markuu soo galo يعني يا دبالدب يا فرحات يا سند عسوى للسود وينا يا جرتا لكن ما ليس ويديه ما عم كفر حسنه وعم كفر حي من هي وعم كفر حي ما كلام معها هدي عمري هذه مثلا وها لحظه سنه تصالحان انت اللي بيقول او سند كستو دماده كفر فرح حسنتها معناه هو ماينس قاعد ku galaya cimrigaaga sanadka laga jarayo oo qabriga lagu sii dhaweynayo ayaa u dabaaldaysa waxa loo dabaaldayay marka wax kale ma aha qabrigii baan u dhawaanay ogaada way macnaha marka saas ma kaana dadku waxay malayaan wax u soo kordhay oo ziyaada laakiin waxay noqdeen minuska iyo balaaska kala garanayeen marka sanadku markuu dhamaado oo koo kale uu soo galayo ma sanad ba ma balaas ba mise waa minus oo cimrigaadii sanad kamid ah ayaa minus laga jaray hadda 2019 markaynu soo gaarin wuu ku dhimanaa oo sanad ku dhiman oo cimriga kamid ayuu ahaa waa la gaaray si kooba maal loo jiray 2019 way dhamaatay sanadkaas asaga xaguu ku qaabilsan adiga cimriga ayaa adduunyada joogi lahayd sanad kamid ah oo minus la geliyay oo laga tuuray ayaa joogta kii 20aad ku bilowday waa farxaday marka waxa ku faraxsan tahay mid kale oo minus ay soo galay ii soo dhaw sanadkii oo minuska gelin lahayd marka minus is gelin lagu farxaa waa laga walwalaa maxaad ilaahay lagu tagaysa cimrigu wuu socdaa daadi way socotaa maxaan sameeynaa in isweydiiyay tahay sidii kale ummadana Soomaalida waxa rabaa in la fikiro yani mushkiladeenu هذا سنة كلاباتنا بحن قلنا أنت نبدأ تامه ومضوا أي سلاح مرتو يعني نربنا ولا هيستو سيدوا ومضوها يميلهم بيودوا أي شقين يسوا ومض يعني جرتوا الدون كله يصاب تمو سومالي محي قبطان محي ترى إن سعيان مقلنا عالم كإنتارين مكان مقلنا الدنيا أنا كيسان وعيار العيار هاي ولا الحياة الدنيا إلا لعب عيارتنا حيكون في عنتها إنه عياره قران كيلو ترى قران له عياره dhinacyada waxa garoomada kaga sawira waa arteen xariiqin cad oo banoonigu haduu dhinaca kale uga baxo waxa la foor u baxay ee garoonka uu ka baxay inaga 30 sano ayaan foor baxsanaa banaankan jirnaa meydaankii ama garoonkii gudaha lagu ciyaari lahaa waynu ka maqannahay marka imisa sanad maqnaanayna marka dadku garoonkii ku wada jiraan dawladda leeyihiin nolol fiican ay haystaan inaga maxay inoo diiday intaan soo golaano inaan garoonka dhexdiisa ku soo noqono maxaa loo diidan yahay ciyaarta inaan wada ciyaarno maxaa loo qashqashay ilmaha yareera markii banooniga ama loo diido ama see wuxuu leeyahay qashqash banooniga lama leeyahay 30 sano soo qashqashayni marka ma sii wadayna 30 kale ma ku darnaa waa macnaha mise waxaan waa ceeb tiyadan tilmaanay markii 91 burburku u dhacay ya 91 يعني بربر كنكو بلوغ وها waxa isweydiin jirnay talow misan deeyay la'aan ahaan doona marka aan sheegay marka 94 waxaan ka dhaar ardaydii aaday Suudaan oo waxbarasho meelahaas waadeen waa 4 sano markii oo burburkii uu jiray waxaan isku qancin maxaa la 4 sano Soomaaliland deeyay la'aan ma ahayn in saayaan deeyay la'aan si ahaan karnaa way la tahay waa niqaash mugti waa iska dood markaas dhaarto deeyay Afrikaan oo burburtay yaa inuu ugu dhow oo haddana ka soo kabatay burburkii markaas waxa dhigay marka wadanka Uganda markaas waxa dhigay Uganda ayaa inoogu dhow meeqay dawlad la'aan ahayd markaas waxa 7 sano dawlad la'aan ahayd kadibna dawlad ayay samaysteen dhinacna way dhaqaaqeen marka waayay hadda 4 sano joogay wasaasan 4 yaa 3 sano oo kale sii joogi karna ma waxaan jirnaa suurtagal ma inaga waan ka duwanay Uganda iyo maxaa yeelay inaga muslimiin islu gooyo sanadka leed waxa la isku xanaaqsan yahay 2 sano 3 sano hadii la kala xanaaq gooyo marka dambe tartiib aqal intuu soo degay baa waxaan inama anfacaysay muslim isdaayo tartiib aan u wada noolaano ma dawladda aan muslim aan haday 7 sano dawlad aan kadibna isku toostay inaga 7 sano ma gaarin waa inaan ka soke ay waxna toosaan hay'adan ma qaan simarin 7 sano ka waran 7 sano baa nooga dhamaan lahayd ayaan qabilayn waxaan sii maraynaa sanadkii 30aad ayaa inoo bilaabanaya maalmo ka bacay 30 sano qofkii markaas dhashay oo dagaalka la koosay
maanta uu duqoobay 30 sano jira maxaa uu dhiman yani waa kii dhashaad kii 5 sano jiray oo ilmo yar asagoo burburka u dhashay jir aha oo hooyadu dhabarka soo saaray laga qaqaxay maanta 30 sano jira 40 waxay laga dhimayaan waa rokaasba marka cimrigii intaadu si socona Itoobiya xoolo bariyo dhaxyaas oo isticmaalkiya 7 sano meelahaas ayagana iyo xogaa yaran rafaadeen way iska jareen hadda oo taariikhdu kuma jirto waxaan sanadahaas aan rafaadsanin inaga jara wada bilaa meeqad soo maraysan 2020 soo marayaan 17 soo marayaan innagana waxaan sii maraynaa way iska jareen innaga soddonka inaga jara goorma soo marayna marka 90 kan soo marayna macnaheedu waxa 90 kan soo marayno ummadaha horumarkoodana 30 sano ayaan ka dambaynaa marka 30 sano ummad ka dambayso ay ummaduna ay hore u socdaan innagana aynu dib u socono oo wali aqli loo soo deynaa been iyo maxaynu isku haynaa af Soomaaliya ku wada hadlaynaa wadankeenu wuu ina qaada oo dad tiro badan oo wadanku ka buuxsanayo war xagga iyaga dul iyo xagga iyaga sika meel kula dhigaa la leeyahay aan dhahayna ma aha haddaan magaalada caasimada ka baxdo intaas oo kiiloomitir oo halkaas wax binaadam ay jooga uu soo jiro iska cillo iska banaana haddana waa ka wala isleenaya oo balaalada ayaa joogsan marka aqliyadana inaan dagaalan ku jirno ilaa imisa sano soo soconaysa marka balbal aan dib soo noqonadaan sanadahan isbedelayo waa inaan aqli ka ziyaadsano dhibaatada aan soo afjar lahayn in laga wada hadlo midda kale sanadahan la xisaabiyo miilaadiga iyo hijriga dadka qaar ka mid ah sanadkan oo aan inagu iska leenahay oo la inaga xigin ayay waxay naga siinayaan dadka muslimka ahayn markaas sanad miilaad hadii la soo sheego wuxuu ku yahay sanadka horta bisha gaalada maanta meeqay maraysaa iyo sanadka gaaladu gaala waxay leeyihiin ma jirto sanadka waxa waaye wuxuu ka dhashaa habeen iyo maalin isbedelay oo bil dhamaatay bishu markay dhamaato haddana bil kala bilaabanaysa ayadana way dhamaanaysaa 12 bilood markay dhamaadaan sanadaa dhamaaday sanadka marka aasaaska uu ku aasaasan yahay waa laba qaybood ama habeenka la xisaabiyaa ama maalinta la xisaabiyaa oo labadaas hadda midalan sanada wax lagu xisaabsado midka hijriga ah waxa inooga xiran أحكامت الإسلام كأو مثلاً صونك وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان ما شيء بشي حاجة على غفي الله بشي ما دلت يومين دلني والسوق خلافة ومثل حالة حسابية هرينك مت كان كلام الحالة الحسابية ما علمت على الحسابية أو على التاريخ المانتا وإني سمانتا ومانتا وقرحة مثل سالي ومانتا وعلى راتن يتدور إن الاستعمال كان ويكون بديه وضدك بنا ويقانان ميلادية وهذا دليل ما أنت بشو أمسا تذكر من ساعات فينا هيكون ما أنت أنا موبايلك فينا ما أنت والله راتن يتضبو بشي اللي يتبنات ربكم يسجال يتبن هذه لو يجي بشكل ما أنت مسي مريسا هي سب برضو الحاجين كجريته ربيع الثاني مياه ما قيم مريسي وأنا صار حسوس ما قرن كره بلا سبحان حسابي ما أوكيا هالبل بش أسوأ بش رمضانك بلا كلمة يجي مريس لكن رمضان ما جاري ولا سومية قف كسوق ويجيس ما أنت صانك وعينسا تضوي مرايا وكله وين حسابك لا ما جاهز صانك ما بماضي بس أكاسين الوقت لكن بيش عن كلا ساعات إنه قرنتها يعني إيجارك جريا معلوك رقاتها بيش وين ما تبرك الجار بالكستة وحديد ما تاو كله مثلا شن ولا باتن كذا شن ولا باتن كاس بيش ما فيرنيس ساعات اللي تفيرني شن ولا باتن بيش ولا الجار إيجارك إسكان ولا شيء مقابل تماما habkaas ayuu noqday marka waxa isweey waxa yar u baahan inaan cadeyno sanadka miilaadiga ah horta miilaadi maxaa laga wadaa miilaadi waxa laga wadaa nabi Ciise dhashay nabi Ciise miyay naga xigaan kuwa mesela nabi Ciise raacsannahay oo masiixiyiinta la baxay inaga xigaan marka sanadka cusub in la ducaysto yani subax walba adkaartaan akhriyana waxa ku jirta maanta markay soo gasho ilaahay waxa uu diisanaa in maali khayraad inooga dhigo waxa Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm nasrahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudahu ayaa ilaahay ku diisanayna sanadka saas oo kale inaan dhahno ilaahay sanadka sanad khayraad nooga dhig ilaahay baraka nagu sii ilaahay hanuun iyo islaamnimo ilaahay nagu sii ilaahay haka marka ducana inuu noqdo ee uu san noqonin sida dadka qaar سنة سودة يوم من تلبهم
macsiyo iyo munkaraad iyo waxyaabo kale inay ku soo dhaweeyaan oo waxan ay ku faraxsan yihiin waxan ay ku soo dhaweynayaanba ayna garanaynin oo dambi iyo waxyaabahan loo baahnayn ay ku soo dhaweynayaan looga baahnay waxa loo baahan yahay cibro qaadasho iyo taariikhdaas oo la xuso iyo habeenkii iyo maalintii isbedelaya iyo sanadahani inay yihiin cimrigeeni qaar ka mid oo go'ay aakhiro u sii dhawaanayno xisaabtan iyo ilaahay subxaan deysanaynaa inta yar adduunyada aan joogno sideebaan qorshahan waxaan u samaysanaa ilaahay baa saa inoogu talagalay oo bisha markii maalan hijriga laga hadlaayo oo bishii way dhalatay ma dhalanin mar 29 bay ku dhamaataa mar 30 ay ku dhamaataa su'aalaha waxay ka imaatay asxaabta waxay dhaheen rasuulka ilaahay bishu maxay marna 29 u dhamaataa marna ay ugu dhamaataa 30 marka jawaabta ay rabaan waxay ahayd in la yiraahdo haddii waxaas isku aadaanna 30 bay noqotaa haddii waxaas isku aadaan oo waxyaabaha kowniga ah ee ilaahay uu abuuray sababta keenta marna 29 marna 30 ayay weydiinayeen taas laakiin hawl u taala maaha dadka ilaahay baa abuurkaas iskale suu rabuuna ka dhigayaa laakiin xigmadda loogu talagalay ayaa dadka la barayaa oo inay shaqo ku qabsadaan ay tahay markaas aayadda quraanka ilaahay waxay ku weydiinayaan yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilahillati يعني بيش محي مرنا لواتنا سهل النقطة مرنا صدق النقطة بيش رشدة كان وريسنا قل هي مواقيت للناس وحد كنت هذا وقت قال له في الصلاة بدك وقت يكون حساب صلاة سؤال شاب كانوا يدينا محي صدق النقطة محي لواتنا سهل النقطة ساسة النقطة لما دين يحاول بيش السماء إذن كان ماشي كذا سؤال بين الحيطة إلى وقت يكون في الستان كوا واحد سوق في ساعة ميت مع الوحرنا مسبيح مع الوحرنا أنا ويدينا waxaan jeebka gashay maxad kartaan idin lama qas amarka ugu dhaana soo baxso waa intaas uu marka ama xaga saaro maxaa loogu talay saacad in waqti lagu fiirsado marka bishan way dhalatay 29 bay ku dhalatay 30 bay ku dhalatay maxaad kartaa adiga bishii way dhalatay bis way dhalatay bila ku dhamaatay bila ku bilaabanaysa haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar ku xirnoo mar waliba ififaale media group mahadsanid